waxaa sii kordhaya cabashada ka imaanaysa xoolo dhaqatada ku nool deegaanada bariga gobolka Mudug kuwaas oo ka cabanaya burburin ciidamada maamulka Puntland ay u geysteen baraago ay lahaayeen isla markaana ay xoolaha ka waraabsan jireen xoolo dhaqatada deegaanka Carguduud oo hoos yimaada deegaanka Jilablaahira ayaa sheegay in baraagtan oo ay lahaayeen isla markaana xoolaha ay ka waraabsan jireen ay burburiyeen ciidamada maamulka Puntland ee fadhigoodu yahay deegaanka Godad isla markaana ay codsanayaan in wax laga qabto dhibaatada ay u geysteen ciidankan meelihii ay shacabku biyaha ka heli jireen haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xoolo dhaqatada oo sheegay in dhibaato lagu hayo barkadaas waa barkad ku taala muxuu ahaa aagga laga xukumo Jilable way hoos tagtaa barkadaas dad deegaan ballaaran oo haddii ilaahay ku yahay oo nabad ah ayay ku taal oo ma garanaysaa muxuu ahaa galmudug waxaa ku soo duulay oo jejebiyey oo sidaa arkaysaanba dhibaato ku sameeyey milisiyaad ka soo jeeda Puntland ayagoo muujiyey cadawnimo iyo falxumo aan hadda ka hor dhicin oo deegaamada aan ka dhicin markii la dumiyo oo la jejebiyo mawduucaas cusub Puntland nabadii aan ku baaqnay haday wax jira ka tahay falkaas ay sameeyeen oo cusub si degdeg wax ugu qabteen masiiba meesha ka muuqanaysa qof maalkiisa la baabaashay hantidiisa la jajabshay biyihii iyo meeshu wax ku shubanayay la daloolshay waa masiibo weey qof soo dhimaya waxaan rabaa marka saddex kalmo inaan ka iraado kalmadi waxa weeye dadkii nabadda ka shaqeynaya oo guddigii nabadda iyo odayaashii iyo isku darkii iyo federaalkii waxaan rabnaa hawshaas in laga hortago waa hawl fal cusub oo ku soo bilowday arrintaas si dhaqsiyaal in wax looga qabto dhinacna waxaan rabaa dhinaca Puntland iyo deegaanka dadka degan iyo dadka u saaxiibka dadka odayaasha iyo dadka aqliga leh dadka maamulka inay hawshaas xalkeeda iyo daawadeeda inay goobaan ay keenaan laga daawo waxaan waa maalna maalin walba la isku celiya maalin walba laga wada hadla maalin walba dadka dhex-mara waxa weey la leeyahay aan iska dhicin oo iska badbaadinayay ka mid tahay si degdeg ah inay uga jawaabaan dadkan u aqliga ayaan doonaynaa dadkaani صدر سنة واحد إحمر لكن ما هو واحد كم هذا على إنه أنت عقلي عليه وصاحب الله دناو هلا قد يكتون على إنه روح سيدعين وليه هو على إنه والله بتلان وريه بتلان وضد عوي عيوب بكترته ضد عقلي له وعلوم له وحجر له مسؤولية له إيه واحد مقرتها أنت واحد مقرتها واحد يروي معيوب باين ولا سقط باين دول بقول كوجرا لما waxaa inta wax magarata waxa loo caasameynay wara laga horto oo la iska qabto waxa socda dabayl caafimaad darujeenina dalka in la nabadeeyo waxaan u taaganahay nabad wacyigelin nabadeed dadka wax loo sheego wixii hore wax laga faa'iideeyo waa maamul waa daris baan nahay waa wada dhalnay waa wada degannahay meel kasta baraagaha iyo guryaha iyo matooradu bay yaalaan haddaan marka waxaan ka hortag lagu sameeyo sida foosh lagu wada aan laga deyn waxa loo socdaa waa foolma waxa laga tagana waa wanaagii iyo quruxdii ayagoo saas ay tahay dadkii deegaanka hadaan ka mid nahay anagu inaan iscashano ka taxadarno ka warsugno Puntland ka warsugno odayaasha noo yimid ka warsugno dalka la dawladda federaalka ahay foolxumada noocaasana dadka lagu sameeyay aan nahay dulqaad waa sameynayna cabashooyinka la xiriira meelaha ay shacabku biyaha ka helaan ee ay burburinayaan ciidanka maamulka Puntland ayaa isu soo taraysay toddobaadyadaan sidaan si la mid ah ayaa deegaanka Caliwaal baraag iyo guryo ku yaalay waxa uu burburiyay ciidanka maamulka Puntland Saadaq Saciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo